الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. horta maanta waxaan ku faraxsanahay waa markii koobaad aan golo shacab oo soo istaago oo aan baarlamaanka Soomaaliyeed aan golahaanayto markii ugu horeysa halkan soo istaago waxaan ku faraxsanahay in dastuurkii uu noo qalan yahay oo maanta noo furan yahay waa maalin taariikhiya dastuurkan buugan xasan sheekh maxamuud oo madaxweynaha dawladda federaalka ah malaha xamza ra'iisul wasaaraha malaha madaxweyne state jooga malaha shacabka Soomaaliyeed ba iskale annagana mas'uuluga ah taas aad baan ugu faraxsanahay waa declaration waana maxaa la dhahaa in sheeg mabda asaasiya in aanu ka shaqeyno wixii Soomaali u xunna aan ka saarno wixii Soomaali u roona aan u qaadno waxaan galayaa qodobka maantayto haweenku ay ku soo midoobeen in dhammaantayo aanu ka hadalno waxaan tagayaa qodobka saddexaad faqradiisa shanaad qodobka saddexaad faqradiisa shanaad waxay oranaysaa waxaa ku qoran haweenku waa inay ka mid noqdaan dhammaan saddexda laamood ee hay'adaha dawladda iyo guddiyada madaxa bannaan ee heer federaal heer dawlad goboleed iyo dawladaha hoose si wax ku ool ah lana sugo gaar ahaan shaqooyinka la isu doorto iyo kuwa la isu magacaabo waxaan isku raacnay inaan naloogu bedelo sida tan haweenku waa inay ka mid noqdaan dhammaan saddexda laamood ee hay'adaha dawladda iyo guddiyada madaxa bannaan ee heer federaal heer dawlad goboleed iyo dawladaha hoose ugu yaraan 30% ugu badnaan maaha ugu yaraan waaye gaar ahaan shaqooyinka la isu doorto iyo kuwa la isu magacaabo haddaba intaas marka aanu niri waxaan leeyahay in haweenka la siiyo 30% u xiran mabaadi asaasi ah ee mabda nololeed ah weeye sida aad u jeedaana mabaadi'dii asaasiga ahayd buu ku dhex jiraa iyadoo loo arkay inuu yahay mabda asaasi ah baa meeshan lagu soo daray waa mabda asaasi ah oo xuquuqda aadanaha ka mid ah dastuurkuna uu runtii ixtiraamay waxaan walaalayaal idin leenahay radow senatarada iyo xildhibaanada ragga ah waxaan leeyahay marka aan idin weydiino su'aasha ah walaalma adeerayaal idinkoon awoodin maxaad afar ugu dhagantihiin oo afar u guursataan oo amadna wa thulatha wa ruba' kulligiin waxa fidsantihiin waxaad noogu jawaabtaan war waa idin hiilinaynayo haweenkii baa tirada ka batay haddaad ogtihiinna idinka badannahay 70% ma rabnee waa idin ixtiraamayna waa idin jecel lahe 30% noo ogolaada waxaa ku jirta inaan 30% helo xuquuqdeedii waxbarashada ku jirta waxbarashada iskoolaadka marka aad aragtaan ee iskoolka la tago haddeertaan 10kii kaalmood ee ugu sarreysay 5 gabdhood baa kaalinta koowaad gashay siyaasadda haddii cadaalad la iga siinaayo 70% anaa noqon lahaa laakiin haddaad u fiirsataan dastuurka sida uu ugu qornaa dastuurku wuxuu oranayaa haweenku waa inay ka mid noqdaan ka mid noqoshadaas yaa isiinaya ma madaxweyne state oo soo qoraayo oo gabar ah baa jirta maya nin baan weydiisanayaa ma oday beeleed wax laga dhageysto gabar ah baa jirta maya nin baan weydiisanayaa ma ra'iisul wasaare gabar ah baa jirta oo weydiisanayo maya nin baan weydiisanayaa ma madaxweyne federaal baa jira oo aan weydiisanayo maya nin baan weydiisanayaa sidaa awgeed waxaan doonaynaa maantayto in loogu hiiliyo 30% inay noo xirnaato taas waxaan uga gudbayaa qodobka 8aad baan u gudbayaa qodobka 8aad waxaan codsanaynaa in qodobka 8aad faqradiisa afaraad maasan sawaxan badan baa jira raali noqdo wax yar inta hadlayso senataradu dhageysta waxaan codsanaynaa in qodobka 8aad faqradiisa afaraad oo ku qornayd soo jeedinta wax ka beddelka dastuurka ee laga tiray in lagu soo celiyo taasoo u qornayd sida tan ilmo kasta oo u dhalo aabe ama ay dhasho hooyo Soomaaliyeed xaq buu wuxuu u leeyahay inuu helo jinsiyadda Soomaaliyeed haddaba si waafaqsan heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda carruurta sanadii 1989 lagu heshiiyey Soomaaliyana aan filaayo 2015 inaan saxiixnay baan u malaynayaa wuxuu farayaa in ilmaha isla marka uu dhasho la diiwaan geliyo wuxuuna xaq u leeyahay magac wuxuu xaq u leeyahay inuu jinsiyadda helo Soomaaliya waa qayb
Soomaaliya qayb bay ka tahay heshiiskaas waxaan leeyahay Jazaa'ir Masar Maghrib Tunis wadamo carbeed weeye dhammaan dastuurkooda wuxuu qorayaa in ilmaha gabadhu ay dhasho uu jinsiyadda qaadan karo haddaba annagu ma oranayno isirkii baa la bedelayaa oo ma oranayo ilmihii in ayahiisa ma isbedelaayo ilmuhu qofkiisii buu ahaanayaa ilmaha ninka Soomaaliga uu gabadha amxaarada ama Kenyaanka uu ka dhalo waa Soomaali aabihii hooyadina Soomaali ma wada ahay ogow ilmaha anigu aan dhalo marka waay uusan Soomaali u noqonaynin xagee ku korsanaya ilmahayga xageedaan la aadaya ma waxaan ku khasbanaanaya calankayga jamhuuriyadda inaan ilmahayga kala hoos baxo oo aan wadan kale la aadan jinsiyad kala qaato ihaana weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda quraanka ugu cadaaladda badan waxay oranaysaa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara diinta waa u simannahay cadaalad baanu ku doonaynaa arrintaas ثوابته واسمناه عقابته واسمناه جنته واسمناه نارته واسمناه حقوق الإسلامية مبادئ برينسيبلز كهذا واسمناه وإنا نسمعنا إن أنه هلا المهيجو وإنه هلا جنسية الصوماليات أبدا وما تنتهين